السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيان أنيقو كسو إبراهيم sidoo hore nagu soo hordhacay saaxiibkay Mahad 69 inuu kusoo kordhinayo YouTube-kiisa ama mar dhow soo fasaxi doono course cusub course-kaas oo ah web design ama sidoo page loo sameeyo ama web page. So marka hore marka lagu dhaho page horta wuxuu leeyahay ama website wuxuu leeyahay wax la dhahayo front end front end iyo back end. So labadan marka maxay kala yihiin? Front endiga waxa waaye waxyaabaha oo markii oo user kale interact gareynayo ama waxa oo qofka isticmaalayo wuxuu arkay kaliya qofka isticmaalayo sidii website qofka isticmaalayo ama qaabka uu la interact gareynayo quruxda page-ka waxa la front end. So front end waxa jiro luqado ama language with a certain markup language language kaas waxa kamid HTML sidoo kale course-kan waxa isticmaali doonaa waxa isticmaali kartaa dhammaan front end back end waxa isticmaali kartaa Python oo isticmaali kartaa like in this case waxa isticmaalina anaga front end waxa isticmaali doonaa HTML CSS ama cascading style sheet kan saddexaad waa JavaScript haduu ilaahay karaal noqdo. Then anaga focus-keena waa Intan focus-keena waa halaan waxa focus gareynayno insha Allah course-kan waxa ku bilaabi doonaa HTML ama wixii loo yaqaano hypertext markup language. So hypertext markup language maxaa marka waa the basic ama waxa muhiimka u ah ama waxa tag waxa dhisayo HTML ka page wax dhisayo. So waxaan soo qaadanaa good example of photo or relative kwa hada waxa dhisi rabtaa guri. So gurigaas foundation keys iyo dhismaha caadiga oo bulkeedii la isku saarayo waxaas we can say waxa dhigi karna taas waa HTML. So marka CSS kana maxaa waaye CSS ka waxa waaye guriga rinjiintiisa iyo wixii oo support kale oo qurxinta guriga the styling the magaca CSS waxa lagu soo gaabiyay cascading style sheet mafahmo cascading style sheet lagu soo gaabiyay cascading style sheet. So waxa waaye style page-ka ama qaabka oo quruxdiisa iska dheh. So JavaScript waa interaction ama the interactivity and functionality maana shaqada page-ka qaabka uu shaqeynayo qaabka users ku la interact gareynayo page waa intaas marka oo ku bilaawno anagu waqti luminayso waxa ku dadaalina video-gan inaa at least hordhac sidii oo loo furayo ama document page loo furayo oo HTML oo wana basic HTML tags-ka wax tags la dhahay jiro waa isla video-gan ku ogaanayna do ilaahay dhaho. So HTML wixii laga soo gaabiyay waa isla ogaanay macnaha iyo waxay u qaabilsan tahay waa certain coding ama encoding language waa markup language hypertext markup language laga soo gaabiyay. So waxa waaye waxa jiro wax oo la dhahay tags famino oo create gareyna ama dhisayo. So waxa dhigi karnaa one of the tags oo kale bedku wuxuu leeyahay some tags oo muhiim ah. So marka koowaad waxa jiro wax la dhahay doc type ama document type adoo aan waqti dhumeeyno waa document KY. So HTML intaas uu kala baxaa 3 4 5. So kan ugu dambeeyay waa marka doc type kan waxa describe gareynay marka furti abarkiiso
waxaa waxyaaba qaar practically u fiican yahay. So marka waad horto inta aad asxapteyda oo course-kan oo kugu fududaado ama u fahamtid waa isla markii waxaa faa'iido ina practical wareejisay. So anigu hadda war ama wax sii galenin more definitions hani tuso marka wax oo text editors la dhaha jiro. text editor ama code editors waxaa la code page-ka ku qoranaysa ama meesha ku qoranaysa the window that you're going to code. So waxaa jira many text code editors waxaa ka mid Visual Studio Code code editors. Let me write code editors. So the main one of dadka badana u badan yahay waxa way Visual Studio Code. So there's another one called Sublime Text. Like me ani ahante qofka do basic ay Sublime Text recommend gareylay. Sublime Text recommend gareylay ama waa kana. So basic waxa adina browser ka kan kugu jiro muhiim waa ina browser oo kugu jiro. Browser ka markii intaas way there are many browsers kamid Firefox Mozilla Firefox and mid kala jiro ka the most common one or Chrome waxaa jiro Microsoft Edge waa badan. So kan oo kugu fudud oo laptopka oo compatible ku yahay kaas isticmaali haduu ilaahay dhaho. Marka after dejino code editors and browser way u jira waa kana. So code editors ka saa sheegni waxa way let me start with the Visual Studio Code ku bilaw. So waa kana ani way u jira laptopka. So you click the first link oo ku soo baxo. So at the Windows 10 11 9 wixii 10 11 ku jiro inta soo dejine linkiga ku dhufane. Hada Ubuntu iyo Debian ama waxyaabaas kale hada ku jiraan laptopka kan linkiga ku dhufane. sidoo kale Marka ku jiro ama laptopyada Apple ka isticmaashi kana ku soo download gareeyay. So ani ahaantii marwada soo deji. So labaad waxa waaye Sublime Text download. Kana you click on the Sublime Text in that local bahaya 2 3 the latest one this kan latest tiga. So download for Windows Marka also deji karta yo Linux karabti to so deji karta marka oo laptop ka kan ku jiro. So anyway u jira marwada soo degsadi. So furo marka waa kana kaashido Sublime Text waa kana. And so the first thing you're going to do is a file aku dufane wax qorin ama qoro bilaabin inoo ku adkaada laga yaabaa the basic type. So wa untitled the magac Malin. So ma sameeyna we save the file aku dufaye ama control s ade lakin inta ku ade save as. Let me say save as. So waxa iso tura Windows ke iso tura ama meesha ku shaqay karoon. So Windows ko file explorer iso tura. So waxa sameeysan hal folder qaas ah oo talgali ina waxa walba aakhiro oo page ka hada sameeyna ku saabsan oo step by step ina ku save gareeyo kan CSS iyo JavaScript iyo HTML ama wax walba sameeyna. So right click ada files kan maro folder soo sameeysan folder waxa ku qoran let me say tutorial of page tutorial page. Then double click of a file ka kana then save aku dufana wa save gareey file. No before that inta save din and magaca aku qoraysi. So inta you either leave with all files or nation or mail waxa jirto oo HTML kana ku dufana directly. So according to me and all files aku dhafa. Then Hada inta new course. Let me say course
course magaca waa ka rabay in file save garay like intan ku dhaafay waxa raacina extension waxa la dhahay extension raacina so extension waxaa noqon html this is the extension file ka waxa dibra so kan adu ku qorin hata ka time ku kacay mafahmino so must way na ku dartiyan extension ka qaybtan dambe .html ado css yahay .css ado javascript yahay .js so waa gaari doona do ilaa kala noqdo then I click save so at the course was save grading at the file can mafahmino and also lawana inta also lawana marka waxa la jiro in html tags kan waxa waaye waxa oo dhismaha oo documentiga ku dhisaysi waa hada waxa dhiga rabulkeedii shubka iyo waxyaabaas then tags waxa kamid ah tani kan below and the basic one waa doc type famino ama the document type famino doc type waxa waaye html waa xeran famino tag type error ku jira laakiin dib male we can muhiimadu waa ina faana under this one there is something you waxa fure html famino html kan waa bilaw furma kadib hadhow dhamaadka markaa gaartay qaabkana u xiray famino qaabkan loo xiray so forward slash ina gilisi waa famino so hada marka html ka dhaxdiis ama html ka under the html wax la dhahay jiro head ku xareynayna so head muxuu yahay marka so head waxa waaye waxa la rabaa inay ku hoos jiraan sida document title ka linkiyalka waxyaabaha oo documentiga oo describe gareynay so these are the head the main head way kan head kala jiro waa ni tusa so waxaan dhan text ku badan tirada ka bateen documenti waa inta lagu sheegay dilo do video gan uu dhamaa karo laakiin mar walba midka sameerno in tags baran way the relevant tag ki oo xilligaas waa isticmaal rabno in isla xilligaas barano aan ugu fudud oo noo fiican so head under the head there's something called title وكان title كوا عنوان كدوكمنتي كوا كان وحدي كرا هذا title كexample نيكسو خادنا هدي كرا new course هدي كرا فاهم then خاب كان وحرا and title there's something I'm leaving and انت حال قلنا ثاني شيء slash قلنا then from there وحرا مركو you will do the title of my document then again there's something called head how a head can so head ku hona fakara inta soo kalbaha head 1 ila head 6 so head waxa way and for example waxa ku qoro document waxa qoro waxyaabo badan qoraal badan oo qoro documentiga then maxa head dhiga maxamada hogaaminta oo kor qoraalka waa weyn ama farta weyn maxaa dhigay qoraal inuu far weynaado maskimaan for example hada waxa dhay kan html so kan headkeyga ba ka dhigay kan waa paragraphka kan waa headkeyga this my head so and waa weynina marka and boldin waa ka dhigay so head qaabkan oo kana kan waa paragraph famino so head inta ba example need to say this how is supposed to be head 1 kan understand when hadi kara head 1 then marka dhamaadka gaaro I will do like something sorry waxa sameeyna marka and waxera head 1 so ila meeqa head loo waa badan yahay ila up to 6 waa wada kartaa so there is something called wax kale la dhahay jiro in key ama paragraph famino paragraph inta soo noqon kara so let me say p
xeran then waa kana paragraphka marka dhameeyo paragraphka intuu ama intuu ekaa ka soo qaad I will close the paragraph waxan so intaan waa la soconaa so practically au tagno marka practically usameyn wada ilaa kala noqdo so you just open marka furti baalkan isticmaashi bracketka noocan waxaa ku dhufanay ama h iska qor html meeshan ujeedin ama html full iska qoro say kugu soo baxdo waatana you just waa ku dhufanay aku dhuftay ama hayso baa waxa maanta dhaadnay so the goodness of kan ama editors ka kale sid visual studio code dhaqaaqan uu ku sameeyno laakiin kan waxa recommend gareyna beginners waxa way automatic ku qoray you don't know dada node bad isticmaal waxa soo waqtilumis waan marka kan waa kan uu fudud oo lagu sharxi karo ama qofku uu ku fahmi karo ciyoon shaqadiisa ku qabsan karo so with a single click ad waxdan waxa sameeyno la foko wax badan way so halala u faan marka document type waa html kan waa html opening tag waa kana closing waa lagu soo xiray the closing tag waa ku xirni hadana head sani shay waxa ku jiraan meta waa the character set documentiga the character set ama qoraalka oo set garaysan so these are language computer language way marka la fahmi doona ilaa kan odan the meta name way viewpoint contact we are just like initial scale so waxa way so big automatically lagu sameeyo so page ko browser walba compatible uu noqdo marka waxaana la geliyo fahmino in isku mashquul ma kan la title way the title sani shay waxa ku qoran new calls fine then we can write new calls then maxaa no dhiman body ay maamula ka hadin ku tusawa kana head ku wafurmi wo intuu ku xirmi we don't need another head waxyaabo kale waa jiraan laakiin markale agilina marka CSS isticmaalino waxaa jiro link oo laga baahan yahay inaa inta gelisid laakiin hadhow way waa la gaari doonaa inshallah then bodyga ku soo bodyga maxaa way waa documentiga wixii ku qoran hadii laga soo tago waxaas kor documentiga wixii ku qoran so body marka inta ka tagto ku dhufatid you open a new one body maxaa laga rabaa sidii head paragraphs waxyaabaas mo so just like head one waa kana head one just ku dhufale usay soo bixina head one fahmo then waxa qori head one waxa ka rabtaa inaad ka dhigtid so this welcome to our new course fine and welcome to our new course kana ka dhiganina marka so marka waaba sameyn documentiga so marka page marka qaabkii ku soo furay marka ama kula soconayno waxa inoo toosay in kale sii ku ogaani first save gray file-ka you either save manually file ku dhufane inta save dhihi ama control s ad sida ku fudud control s so file ku save gareysay hadda intii aada marka waxa aada file explorer ka aada meesha ku save gareey waa kasa so adina dhow yahay ina easy ku soo saari kartay al raba kana tutorial for page ku qori waa kana course vamos kana marka double click waa ku form waa welcome to our new course so waa kana page for so bahay vamos waa so bahay then the next step waxa soo barani wuxuu ahay waa in paragraph oo harna ina paragraph inta gelino qaabka u gelina aku lawan bartena so ado isdiwenin you open a new tag with p fano p ku dhufo waa inta marka dhaay paragraph marka waxa ku qori lahayd ako meesha ku qori lahayd soo ko biine
according to me waxana ku qorraa was copy waxana sublime text again then paste aku dah marka waa dhigi waa kana then save gray browser ka tag and refresh de xamasina waa kana we paragraph kan waa kana this a paragraph habkan waa marka documenting hadda documenting wuxuu leeyahay wax badan oo leeyahay sidii background ada correct ina sawir gelisid ina blue ka dhigtid ina cagaar ka dhigtid ina wax ka dhigtid so maxaa laga rabaa ina sharaxaada si u qaabilsan marka waxa u qaabilsan cascading style feed ama CSS waxa u qaabilsan cascading style feed ama CSS ka waxa lagu qurxinayo page the basic ama ashirkeena maanta inshallah bidnillah albari video yalkeena xigo ama tutorialska ku soo qaadi doona do ilaahay ka baraka inshallah marka waa kay kulantii waana wanaagsan inshallah ati ada ugu faraxsanayna oo asxapta ugu faa'iideyno page-kan ama YouTube kan fadlan subscribe love share and like share waxa no awadi fadlan notaaw then ka faa'iideysi waxan waa ka faa'iideysi doona do ilaahay loo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh